Dr. Axmed Aadan Buuxan oo kamid ah gudida la talinta gudida heer qaran ee koortaga caabuqa coronavirus ee Soomaaliland oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Boorame xarunta gobolka Awdal ayaa ka hadlay arrimo dhowr oo ay kamid tahay cudurka coronavirus isagoona bulshada ugu baaqay in la qaato talooyinka gudida koortaga cudurka coronavirus iyo sidoo kale bahda caafimaadku taasi oo uu sheegay inay tahay takaliye ee lagu hortagi karo faafida cudurkani. walaalayaal ogaado oo waa bil aad u culus rabadaana wayna soo galay cudurkiina wuu joogaa COVID-19 walaal cudurkaas adduunyada wuxuu ku hayaa mushkilad aad u culus anoo kamid ah gudiga la talinta ee gudiga sare ee la dagaalanka iyo ka hortagga cudurka COVID-19 ee qaranka xanuunkaasi waad ogtihiin adduunyadii wuxuu ka marayaa inuu ku dhacay 3 milyan wax ku dhow ku dhacay sida oo kale dadka dhinteena waxay marayaan maanta 200 kun ku dhow yahay wadamada carabta iyo marka la isku dardaro inta dhow badankooda ilaa iyo dhimashada waxa la kor loo dhaafinayaa 5 ilaa 20 kun oo qof loo dhaafinayaa guud ahaan muslimiinta guud ahaan waxay la mid yihiin bulshooyinka caalamka la mid yihiin xanuunkaasi culays badan buu nagu hayaa dib badan buu nagu hayaa waxaan ku talinaynaa marka walaalayaal in sida layna amray dhamaanba cilmigu inoo sheegay in lagu kala qaadayo isu soo dhawaashaha neefta qofka qufaca qofka hindhisada qofka istaabashada sida awgeed dhamaan ka fogow goobaha meelaha la isku yimaado badahooda ka fogow waxa kamid ah hoteelada waxa kamid ah goobaha lagu kaftamayo kuwa lagu sheekaysto iyo ugu dambeyntii xataa goobaha cibaadada in waqtigooda aad loo yareysto. Dr. Axmed Aadan Buuxan ayaa sidoo kale ka hadlay horumarka ballaaran ee ka socda gobolkani Awdal ay ka mid ka tahay wadada isku xidha Boorame iyo Djibouti taasi oo dhawaan dhismaheega la bilaabi doono isla markaasina uu sheegay in la xalliyo khilaaf dhawaan ka dhacay bariga gobolka Awdal isla markaasina ugu baaqay waxgaradka iyo mas'uuliyiinta in wax laga qabto maadaama lagu guda jiro bisha barakaysan ee Ramadaan. walaalayaal waxaad ogtihiin in Soomaaliland iyadoo sanad jirin ay isku yaacday dabadeed muddo dheer ka bacdina 93kii lagu shiriyay magaalada Boorame waayeelka iyo waxgaradka iyo aqoonyahankii waqtiga ka shaqeeyay dalkay dadka magac iyo muuqaal iyo karaamo u soo jiideen taas waxay keentay in dib loo yayabo oo lagu heshiisiyo Soomaaliland magaalada Boorame ducadii aynu ka helnay nabadda iyo khayrka iyo wanaaga waxay noogu sameysmay jaamacadaha ugu waaweyn dalka ama Soomaaliba leedahay bulshooyinka bari iyo galbeed iyo koonfur iyo dalka afka Soomaaliga laga hadlay iskaga yimiday horumarku soo keen dhiibaya maalin ka dambaysa waxaynu rajo weyn ka qabnaa dariiqaas oo isku xidh doona magaalada Boorama ilaa iyo magaalada Djibouti isku xidh doona wadanka Djibouti oo rajo weyn ka qabno inuu nolosha iyo ganacsiga bedelo 300 milyan oo dollar baa ku baxaysa dariiqa wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadku iyo hay'adda dariiqyadu waxay dhameeyeen imika hay'addii horumarka ka qayb qaadan lahayd bay dhameeyeen wali kumay dhawaaqin oo waxay la sugayaan arrintii bangiga waxa laga yaabaa wiigaga soo socda inaynu helno confirmation ugu dambeeyay dibeedna lagu dhawaaqo cid ku guuleysatay shirkadii ku guuleysatay sahminta iyo waxa loo yaqaano design-ka dhabta ah uu noqon doono dariiqaas yeelan doono inaan helno suurtagal sida ogeey walaalayaal nabadgelyadu waxbay ka dhimaysaa dib bay kugu haynaysaa noloshaada dib u ridaysaa horumarkan ku jirna maanta ku jiri mayno ninkii soo arkay taariikh xumadaynu soo galnay baa garanaya waxaan ugu baaqayaa cid kastaba war aqli gaabkeena iyo ninka liita yaan talada loo dhiibin waxgaradku ha taliyo garaadkuna ha taliyo tabasho wixii ah ee la qabana dariiqad loo maro ayaa jirta hadday noqoto imika arrinta beerta ee la isku haysto intaan ka ogahay waxaa loo ogolaaday ciidanku inay sii kala joojiyaan isku dhac dhiig dhalin lahaa ayay ka hortageen ciidanku sida awgeed ما هم مهم
inaanu ciidanka la dagaalano laakiin waxaa sax ah mar haddii ciidankii lagu wareejiyey inta beerta la kala xukumayo dariiqii sharciga la isla maro haddaad ka cabanayso marka maamulka degmada ama maamulka gobolkana nidaam maxkamadeed oo isdaba yaala laynoo sameeyey waxaan ugu baaqayaa waxgaradka iyo aqoon-yahanka gobolka arrin la daawan karo maaha bil rabadaan oo weliba cabsi iyo xanuunna aan ku jirno haddana inay noo sii gasho cabsi nabadgeliyo aad bay culus tahay waxaan dhihi lahaa marka waxgaradka dalku ha kaceen arrintaana degdeg wax looga qabto waa cabsalaan saaha warbaahinta qaranka Soomaaliland magaalada Boorama.